bismillahi raxmaani raxiim runtii maanta farxad weyn noo tahay aniga ku hadlayo magacaygu yahay macallin Cabdiraxmaan macallin Axmed ku magac dheer macallin Tare kana mid ah macallimiinta xulka qaranka 20 jirada oo hogaaminaysa waddanka Sacuudi Carabiya oo uu qayb gali doono tartanka jaamacatul Arab kana furmi doono bisha 20keeda marka farxad bay tahay Trap Sports inaan maanta nagala soo qayb qaatay shaqadan adag oo hawshan aan bulshada ugu adeegay waan ku mahadsanyahay ku dhawaad 2 bilood iyo maalmo ayaan tababaray kasto waqtigu iska adkaa tartamada ay jireen xilliga horna gaab uu jira ciyaartoyduna aysan soo helin waqti dheer oo game soo ciyaar iyo xulashadii kala saaridii xulkii labada group awgeed marka runtii inta numberkii ugu dambeysay oo aan isdhihi karno waxay matali karaan oo xambaari karaan mas'uuliyadda Soomaaliya xulka qaranka Soomaaliya oo matali karta da ahaan iyo farsamo ahaanba iyo qaab ahaanba iyo aragti ahaanba waxaan ku rajaynayaa insha Allah inay natiijo wax ku keeni karaan oo shaqada aan qabanay ayaga fahamkooda sida uu yahay iyo kulli waxna looga fadhiyay ay tahay mar waliba inaan sameeyno wax guulo wax ku walayo natiijo saameyn leh horta runtii sport wuxuu leeyahay sida wax waliba ay leeyihiin rhythm iyo hab u gooni ay leeyihiin method iyo methodology wax la jiro soo macallimiintu ayaga looga baahan yahay communication-ka iyo motivation-ka iyo compact isku xirkii macallimiinta la yimaadeen farsamadan waxa la yimaanaysa marka hore ciyaaryahanka waa 3 qaybood marka farsamo xeelada adkaysi soo marka maadaama ay naadiga ka yimideen oo kalaabyo kala duwan ka yimaadeen kaliya inay teamkii oo team waaga wada shaqeeyaan defensive-kii midfielderskii attackerskii compact teamkii isku xirno mar wada attacking sameeyaan mar wada defensive sameeyaan quick transition kana sameyn karo oo aanu anaga methodology-gan isticmaalayno ay noqoto mid ayagu ay markaas fahmi karaan luqadda ay ku fahmi karaan maadaama aan luqadina wada nahay runtii habkii loogu talagalay markaas qof waliba steps-kii boorsigii oo approach kareyn lahay anagu ku dadaalayna qof waliba fahamkiisa si la socdo dadku isku fahmaa qof wuxuu ku fahmaa it takes waqti qaadanaysa wax fahmo qofna hore immediately wax ka qabsana marka waxa soo dhan anaga farsamo ahaan macallimiinta waxa looga baahan yahay tahay mas'uuliyad saaran marka sidaas awgeed waxa weeyaan intan waa intii markaas marxaladii kala duwan aan soo marnay kala beddelkii awgeed waa intii aan dhahnay waxay la jaan qaadi karaan fahamka kubadda cagta sida ay tahay anagu methodkii methodology-ga isticmaal lahayn sida ay u gaarsiin lahaayeen garoonkaas horta adduunyadu waxa weeyaan waxa la socotaan 2014 Brazil oo jarum gurigeedii joogta waxa looga badiyay 7-1 this football like mathematics way mathematics hadii laba lagu dhufto 8 waa tiraan 6 waa tiraan adeeg ka go'an tahay waxaan anagu rabnaa waxay tahay oo haddana aan marnay steps kala duwan oo training kaas oo qudhiisa wuxuu kala yahay mental training iyo physical training iyo maxalka maciisha practical oo kala yahay hadda waxaan bilownay markaan oo physicalkii tacticalkii wixii teamkii oo practice garoonka lagu sameeyay wax mental training la yiraahdo oo qofku uu concept ka haysto shaqada uu qabanayo roolka uu ku leeyahay sida uu qabanayo iyo formation-ka uu ku ciyaarayo how can just uu translate garay karo oo uu ku soo bandhigi karo kubadda cagtana waxa way xisaabta waa football always about time and space ale mugta waqtiga time to pass time to dribble time to cross time to shoot waxa iyo space-kii iyo movement-kii ankle support-kii iyo participation-kii iyo qof walba defensive role leeyihiin midfielder role leeyihiin forward role leeyihiin as a team compact-ina waxay wada leeyihiin role and responsibility wada jira kuma oo ahayd sida kubadda haystaan oo manage garan lahayn how can they attack by time kubadda ay lumiyana si defensive-ka ay noqon lahayn zonal marka uu sameyn lahay quick transition kaas ay sameyn lahay so Somali moderate football-ku waxa way hadda now understanding badan faham badan ay ka haystaan transition kan football oo hadda moderate football-ku uu noqday inay qayb ka noqdaan oo is leeyahay wax badan insha Allah ay muujin doonaan soo bandhigi doonaan laakiin waxa aan qabaa waxay tahay marna shacabku isan laga quusan anagu rajada aan leenahay waxay tahay 100% in aanu sameeyno wax kasta oo awoodeena oo aan ku gaarsiin karno shacabka Soomaaliyeed oo guuleysta oo magac iyo sumcad yeesha anaga sharafayno tahay for the history waxaan rabnaa inaan history sameeyno waxaan ku sameey karnaa waa taageeradii waxaan ku sameey karnaa waa jacaylkiin waxaan ku sameey karnaa waa garab istaagin annagana waxaan rajaynaynaa insha Allah inta nasiib ku yeelato safarkan ka qayb gasho inta ciyaartoyda waxa weeyaan aan dhig karo oo Janice ku heshay hadda inay tartankaas qayb aan rabana insha Allah ayagana waxaan ka sugnaa waxay tahay natiijo wax ku oola kalsoonida ku qabno in ayaguna muujiyaan rajaynaa insha Allah